warar goordhow soo dhacay ayaa waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Juventus ay heshiis shakhsi ah ay la gaartay ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Inter Milano Mauro Icardi. wargeyska Gazzetta dello Sport ee ka soo baxa dalkaas Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in kooxda kubadda cagta Juventus dooqa koowaad ee sanadkan suuq markaasi uu ahaa sidii ay ula soo wareegi lahayd Mauro Icardi. taasina waxa ay markaasi macquul tahay in ay markaa heshiiskaasi u dhaboobo sida Gazzetta dello Sport ay daabacday. isbuuc ka hor ayaa heshiiskan la sheegay in uu dhacay oo Inter iyo Juventus ay isku wada raaceen in ciyaaryahankan markaa ay la wareegto kooxda Juventus ayna ka qaadato kooxda Inter Milano. wararka ayaa waxa intaas ay ku darayaan in ciyaaryahankan markaa uu qayb ka noqon doono heshiiska ugu wareegayo kooxda kubadda cagta Juventus ciyaaryahan Douglas Costa kaas oo isaguna dhinaca Inter u wareegi doono. waxaa intaasi sii dheer in isdhaafsiga labadaas ciyaartoy kadibna 8 milyan markaa kooxda kubadda cagta ee Juventus ay bixin doonto oo Icardi markaa ay ku soo qaadanayso oo markaa 8 milyan lagu daray ciyaaryahan Douglas Costa ay kula soo wareegi doonaan ciyaaryahan Icardi. Juventus ninka markaasi maareeyaha u ah oo lagu magacaabo Fabio Paratizi ayaa waxa uu in muddo ah uu ahaa taageere nambarkan 9aad ciyaaryahanka xirta ee Inter Milano Mauro Icardi sidii uu keeni lahaa kooxda Juventus. taasina waxay macquul tahay in waqtiyada soo socda si rasmi ah loo dhameeyo.